السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta la hadlayaa ummadda muslimiinta oo dhan horta ciid wanaagsan. waxaan ku salaamaa iyo Soomaalidaba salaanta diinta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan rabaa caawo inaan ka hadlo hadda koorna waa ka hadlo wax yar laakiin maalintaas mashquul ah laakiin caawo u soo xiidxiiti inaan ka hadlo waana ugu talagalay inaan ka hadlo waana u soo xirxirtay inaan ka hadlo runta oon la baqin lana gagabanin because haddaa cabsatid cabsi wax laguma helo sida ilaahay kugu ogyahay iyo sida ilaahay kugu talagalaa kugu dhacaa ma ogiye waxaan alla qorin kuguma dhacaayaan wixii alla qoraa kugu dhacaaya marka waa inaan runta ka hadashaa caawana inta waxaan usoo fariistay inaan runta ka hadlayo waxa Soomaaliya ka socday sida anigu u arko fikrad ahaantayda waxay iguma jiraan qofkii igu naci lahaa iyo qofkii igu jeclaan lahaa runta ragga kama naxiso runtana dadka kama naxiso mana dhibto waxaan caaw soo xasuustay oo aad uga xumaa oo murugo igu dishay siyaasadda Soomaaliya ka socota iyo sida la isugu tashanayo iyo sida loo baabi'inayo waxaan soo xasuustay aabahay marka horeeto because wuxuu ahaa Salaad Gabeere nin Soomaali u soo halgamay inaan taariikhdiisa laga hadlin nin aan xaqiisa la xasuusanin nin dawladdii hore ee Maxamed Siyaad Barre ay buugaagta ka tirtirtay raganimadiisii taariikhdiisii iyo dawladdii uu sameeyay intii tuugada ahayd oo ayaga ahaa oo isugu tagay uu asaga booska keeyay aan dilay iyo in uu u soo hogaamiyeen oo dadku uu ka dhashay ciil ayuu qabriga la galay maanta waxaan u jeedaa siyaasadda xamar ka socotana iyo sida xasan loo wadana inay saas u egtahay because kuwii shalay aabahay dilay iyo kuwii u soo hogaamiyey labadiyaa isla socota maanta taas waa waxaan la fajacay waxaa ka mid ah shalay foolxumadii aan arkay odag bidaarta lahaa oo yuulka magaciisa ma aqaan aniga laakiin yuulka waan u aqaanaa waxaase shaqo darajada ka qaaday oo weliba kula dagaalamay indha adeegiisa asoo ka mid ahaa dawladdii hore oo korrabtadka ahayd oo baaba ahayd asoo ka mid ahaa hunguri weynankiisa ilaa waxaan maqli jiray makulaal meelay macal ugu baratay macaluul ugu baktidaa 21 sano ina adeerkiis garabka ugu jiray marka wuxuu u maleeyay meeshaan inay tii soconeen 90 dhamaatay finish no more lies no more tears no more calool xumo no more afkii la iska xiro neefta la isku cesho alxamdu shukr maanta waxaan gaarnay xornimo alxamdu shukr waxaan gaarnay inaan dadka iska dhicin karno waxaan gaarnay heeriyada inaan iska ridno laakiin nimankii shalay la socday yuulka heeriyada u saaran heeriyadii Siyaad Barre 1969 Salaad Gabeere oo u dhiibay heeriyada wali u saaran waxay u maleeyaan wali Maxamed Siyaad inuu xukumo saas yuulka uga baqayaan u maleeyaan maya waxaas ma jiraan waxaas iigu daran ninka geedi hebel geed Cabdullaahi geedi shidoor la leeyahay markaan soo xasuustay anaa iska xanaaqay oo wali abgaal ka dhex talinayo hadlaayo muxuu yahay aqoon ma leeyahay aqli ma leeyahay ma yahay nin dadkiisa jecel ma yahay nin dalkiisa ku tiirsan waa maya waa caado qaatay cadowga kuu soo hogaaminayo Salaad Gabeere soo aqoon u lahayn uu habeenna uusan la kulmin because Salaad Gabeerena generaal waa asna oday baadiila keenaa xagee isku baran karaan waa ninka ku marqaati kacay because waxa ku dili kara hoostaada qabiilkaada iyo dadkaada ugu daran markay kugu marqaati kacaan ninkan kale waxba isuma tiin Siyaad Barre waxba isuma ahayn waxa dilay waa ayaga dadkiisa gaar ahaan Cabdullaahi Geeso dadkiisa mooda dhigi karo dadkiisa badanna waa u baabeen goday ku jiraan Salaad Gabeere dartiis gaal shiraa lagu laayay waa la wada xiray ehelkiis iyo walaalihiis iyo nimanka xigtidiisa iyo beeshiisa dhan oo iga sheegta Cabdullaahi Geedishado marka nin walaalkiis dilay oo lacag ku gatay ma xasan sheekhu u daahaya maya because wuxuu barabaabo nin abgaal cismaana ama nin abgaal cismaana oo horumar leh oo magac leh oo sharaf leh inuu baabiyo cadow u soo hogaamiyo waa daalnay marka abgaal waxaan jeclaan lahaa inay iska dhex saaraan odayaasha caado qaatayaasha in nimanka aan cilmiga iyo aqliga badan lahayn oo meel gaaban wax ka arka oo u maleeya inuu qofka kale ka fiican yahay ama wali uu Siyaad Barre xukumo in adeerkiis uu iska soo horumarina oo waliba leevilla Soomaaliya ka baxo how jahil he is because dawladda ninka haysta ilaa
حسن الشيخ إن لا ترتم عنك مديدين ولا لا ترتم كرا نين كستان إيمان كرا أو الصومالية وفرنتا حمر إيه مقالة مدحدة إيه إنه مدحوين نقض أو أقولنا لكن ما أقولين ليش يسيني كرا ويفتو وصهر مرتعد والناس وقامس لكن صومالي ولا أفرنتا وحن لي عبنا رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد هكبحه عمر عبد الرشيد سوء قبحايا ولي رئيس الوزراء وعمر عبد الرشيد على شرمارك أسجن بيس نوالي يقان أس نوالي يقان ليش وكيم نوالي يقان سنجيب دي سنوالي يقان وانين سياسي وانين بيس سياسي وانين شرف له وانين قيمة له مركز حسن الشيخ عمر عبد الرشيد ما ديدنا إن لا ترتمه لكن أفلقات ده عمر عبد الرشيد ده كيس معايا يعني أبقى له كبحسن لأيه وعجائب عندها كلا أوبرتي كويلة أتكسر إنه معاه ماشي أي كنت الظلمان أي حوار إسلامي دعان أي دتك الدلان ولا عدد الدلان ومد إنا سنتيج الدلان أفكر دتك كحيران عيالش السنة وشبته وعد ما 1990 كديفة دود الله بنتي محمد سيادي وحي للشقيقين وحي هايين not only one قبيل هوي دارو وحي سوق جريب إساق كلي لمن كتوجد إسبحيستي وسياد بر للشقيسنا نو قبيل كمان كاسو كميديا يولكا ما أقول بقول في عن أيوة باش وكذا أشياء كجرت أو عيب لين لكن السجا ما مثلي كريم ما نسوي استاكريه حمر ما ندي كريم في الله كبحه وحاسي يقصي على الحن وحمان وعيل يقول لايو باش أبقال وقص ليس أكفر ليكو هريريسا فول حمدا استاسواي ما أركيست niman kaloo taliya waa jiraan mudugaa jirto Puntland jirto Kismaayo jirto dadkooda hiifa u kala hormaraa video soo istaaga ma arkin except my qabiil abgaal صح marka abgaal waxaan jeclaan lahaa inay ka koraan ninkan caada qaatado Cabdullaahi Geedi Shadoor ahna waa in lagu xiray meelaha waayeelka lagu xiray haduusan maskaxaynin إلا أم لا إما إنه مسكحة يدو مسكحة دنبي وقالوا حسوسا لها يدتك ilmihii أقولتمي أبود ومرقاتي وكوفل هدو أم لا إن له المامين أنا كم هي المامين قلبي أنا كم كويس ما أنا كجوي كرتو ما أنا كجويس وعن جعلان لا ولي بالله في نوع مركو حيدني لها لمن كان وكل أرض حسن إنه هي فرق بيشي ساعة وترتمي كرتان ترتموا الرجل مدينة إسكو صوش الرحى لكن هحاجة إسبهيسي مجد أو يا إسبهيستين إن العدو بأزه قامسان إن أديركي السر إن أديركي سيدين مسه قامين حاجة أسعطان أدينك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما واحد لولا أبقى الوادبال أبقى الدبال معهن أبقى لمن قيمة لا كتير لكن واحد عيري وأدينك وكله وعدو بسه قاميناي مركا حشوده كجبضة كاميرا waxaan kala idin sheegaa socodaan xamar ku socona haartaaga idin ku dhicin xasan sheekh meel qaloob ku jira socodkiina dawladnimo kuma helaysaan darajada Allah baxsha xasan darajada Allah xageedu ku helay ما يلاقي مو يديسي مدحوينها markay doorashada cadama la bixiyaa mase hormuka baxa maya madaxweynaha marka ayagan aqoon u lahayn because meesha dhan waxay ku tageen been iyo qootadii la sheegayo reer xamarka ee istay tirinayeen sidee loogu tagaa waxaa lagu tagaa madaxweynaha intuusan markuu dhaco ra'iisul baarlamaanka loo dhiibaa xataa taas wali ma dhicin ilaa uu madaxweyne kale la soo doorto shabciga soo doortaan madaxweynaha maalintaas xilka wareejiyay sidoo Sheekh Shariif sidii sharafta lahayd oo xasan ugu wareejiyay ayuu xasan madaxweynaha loo yiraahdo ka baxa hadda filada waxa loo yiri kii 22 sano la soo shaqeynay korruptadka wali wuxuu qabaa meeshii ilaan meel aan xaq jirinayay oo dawlad aan حق كهاللينا إذا ضدك النفط كعلسي أياه وحو برتي إنه معل كدوقة ماشي مركو عسلة بلاد معشي يعطال ولي مايا حسن شغل هدود در أنت ماشي فقط نت وحسن شغل درجة كحنيوفين مالي مركا ولا كحنيوفين كرا وأنا صوتر تم كرتا but you don't have to hate that much be democracy be happy درجة ولا وايا لكن هؤلاء هنا أفلقات دونين هنا أتصمن إن أديركا because أنا جاي نقول عادي أنا أبيه كود عادي أنا جانا للصعيلة أنا جا حوله إني أبيهم بديك إني اللي سكتر صدق أبقى وحاضر كها نينك حد لاين ومرقات تقلي وأبيه عيل لقلي مركا اسمه إذن أبين وحود على إني كرايان
maalin maalmaha ka midana ay imaanayaan hadli doonaan marka waa idinla leenahay beeshana waa idinla leenahay wadankana waa idinla leenahay hanoo kala hiifina maxaa beeshaan abgaal kaliya ka dhigay dadka يعني ما أنت كنت ترتمعي كاميروين كإيو شركة إيو ما إيو أقوهر مري أفلقات دي عينة وحا أقوهر مري كعادة القريش أبقى الوضط في عن عيب ملهن عينا ملهن لكن وحا كبضن عاد قاطياشا كواس إني ميل إسكا حيران واي حسنا وركي ندقها أيو كحيرت وهذا جبريل ودنا جبريل وترتمعي ما شاء الله شيخ شريف سيدا الكلام ورك وضع الله معاي واي سوغان رغنيمدooda iyo cilmigooda iyo darajadooda iyo kartidooda ay ku soo tartamayaan qof walbana waa u banaan tahay tartanka Soomaaliya oo dhan ay u banaan tahay Soomaaliya oo dhan nin kasto tartami karo way u banaan tahay laakiin laguma dhiin dadka xigxigo maanlaawe iyo caruur iska hadashii cagweyn waxay naagtan u tiri qabtaa gabadhaanayto waxaa ka soo qaadaa meel cidlaa marka kuwaan hadlaayo abgaal ma matalaan waa caruur cagweyn xasanna dhagoo idinka xirtay abgaalka kalena dhagaha idinka xirteen maasha allah intaasaan idleeyahay xishooda oo waxaa waaye waxaa fiicnaan lahayd oon jeclaan lahaa inaad gabbataan kaamarooyinka kuwa kaloo layg u soo saaraya ama laflafta isku bixinaya waxaa idiin sheegaa abgaal waa wan beesha uu ka dhashay kama hadlaan maxaa dhaca kama hadlayan cumar cabdirashiid beesha uu ka dhashay waa beel sharaf leh ilbax ah qiimo leh abgaalna wakadaalik saas waa iyagana ee adiga ha u qaadin abgaal afartan doqonoo doogga ah eeyaha ahoo yuulka uu qoorta uga xirtay silsilada marka ayaga maxaa kaamirada soo istaajiyay waxaa soo istaajiyay hadda waa dogs waa eeyo horey aabbahay u cunaan marka kuwii soo koray lee waa hadda ayagana cabdullaahi geedi shardaduu hogaaminayo yaa weliba yuulka waa u istaagay weli lama arag beesha hiraab iyo beesha hawiye maasha allah beesha hawiye kama hadlaan beesha hiraabna kamaana mana caytamaan waa dad sharaf leh hawiyii daaroodna ma caytamaan afar eey iyo kanoo kaloo maxamed siyaad la soo shaqaysto dhuuni raaca lee hadlaa ma ogi soomaalida inteeda kale waa dad sharaf loo qiimo badan afartan eyna haddaa sharaf leediin soo istaaga meesha ee soo tartama sida dadka kale u tartamayaan ma caytamaan isbahaysi ma ahan waa qooto iyo dadka kale leh aabasiyaad weli ku qarwaay aabasiyaad talow ma aabbala'aana ku dhacda asaa soo koriye ma ogi ani taasaan garan waay laakiin muroy adiga kartidaada adaa ku fiicnaa soomaali inaad hogaamisa kula jeclaan lahaa inkastoo aa ka soo jeedo dad siyaasiyiin ah dad maaragta soo maray sida aabbaha waxgarad maaragta president wax walba aniga aadan cabdulle cismaan oo sharaf ah oo si qiimo leh uga degtay aabbahayna waa la yaqaan salaad gabayre keliya alla u naxariiso siyaad barana asaa u dhiibay inqilaabkana sameeyey siyaad barana u dhiibay asagaana godka ku riday iyo nimankii tolkiis ugu soo sokeeyey uu geedi shadoor cabdullaahi geedi shadoor ka mid ah muxuuse kala jecel yahay walaalkiis cali geedi shadoor uu yidhi salaad gabayre la shiraa u xiray marka kaasay weli abgaal wataanay leeyihiin beel hebel uu ka dhashay wuxuu mateli kalamaan abgaalna calooshay ka ooyayaan abgaal ma wada xumo dad fiican ku jiro dad fiican dad qiimo leh dad sharaf leh dad raga marka noo banay nimanka ragga ah mudane sheekh shariif maasha allah waa dad sharaf leh waa dad qiimo leh waa dad isuba hadda ninka ragga hadduu isubo wuu kula tartamayaa waana kumana caayaayo laakiin qofkaan caqli lahayn oo agtiisa weyn tahay carruurna maskaxda ka ah keliya caytama isbahaysiga markuu leeyahay aniga aan la yaabana yay isu bahaysteen inay xasan sheekh sida aabbay la isugu bahaystay ay god ku ridaan maya too late not today la soo tartama websaydyadana ha ka caayina warheedhe beelaha kale isma caayine abgaalo nimanka idinku dhex jira oo caado qaatayaalka ah far iyo suul isaga qabta annaga waxaan nahay dad la yaqaanoo sharaf loo ilaahay karti iyo dadnimo siiyey abgaal soomaali baal dahab uga jiraa marka aan isku duubanno laflaf yaan isu kala saarine aan walaalowno wixii xunna aan iska saarno saasaan ku guulaysanaynaa ninkeenna noo soo tartamana aan taageerno yaanan caayin marka taasaan idin dhihi lahaa I don't mean inaan xasan sheekh u hiilinaayo
ama aan xasan sheekh la jiro doorashada way bannaan tahay xasan sheekhna afkiisa cay lagama maqlo hadal lagama maqlo because ilaahay u qadaray inay beesha ugu xun oo caytamayso caqli laawayaasha ay ka dhasheen ay abgaal noqdeen marka waxa waaye nimankeena caaqilada ah nimankeena caqliga leh nimankeena hogaamiyaasha waxaan ka baryayaa inay naga qabtaan nimankan telefishinna u soo istaagaya beeshooda kaliya inay caayaan u taagantaa berri jabriil imaan karo sheekh shariifa imaan karo nin kale islaameeda imaan karo adigu un ma lagu gadanayaa marka intaasaan leeyahay xishooda telefishinada ka taga xamarna haarataagiyadu ku dhici intaa lugaynaysaan aad bay u kulushay Soomaaliya laga soo baxana فيلا صومالي يا كصباحة فيلا صومالي حسن شيخ هكبة حميدة حسن شيخ هكبة حميدة حسن شيخ هدو كبة حي هدي كريته تي الله وقرنتاي دور الشذا وحي كل جرن لأيين دور الشذا يدولد نمذا ما أنتم حاركة حلبان من لي عبدي هبل والسؤال سوقر ما قرناي ما قيسي ومالين كستا اسكو خدل دلما بس هي ما قانا وعيري سؤال بان إذا ويدينا يا أساس كده جاي جورناليست أما نن علمه وعيري سؤال إذا ويدينا يا حسن شيخ يا رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد هذا ويدكتين دتك إلا مدين no ولما دكان دتك أنا لما حمر أيجا أطلي whether you like it or not إلى دور الشد عدنا ما وحاربتين إني بابان يولكي إني بابانا مايا قعنتو ذي كجرتا إلى دور الشكل عدو مدحويني بعد si sharaf leh ayay qaranka xaqooda iyo dawladooda iyo maamulkooda iyo bangiyadooda ku wareejinayaan dawladda cusub oo imaan doonta marka hama jar habaabinin Mr. Abdi ma aqaan Abdi xildhibaan wax kama og miskiinkaan fiiri adiga fiiri ha ugu hormarin dadkaada dadka ما الهدار جنا بوبتنا دولتي محمد سيادة كأكيد بس هوي دارد وحي كجري هذا مايا وحلا بوبا من الصومالي واسمنتا وانا هشية مدحوينه روانا إن اللي إيمانا وانا أطمينا وانا أصعبتمينا لكن عادي أفلقات دادو مهليس السلام عليكم ورحمة الله هاي محا قدر تعديقنا باي انت سعيد هاي محا قدر تعديقنا محا ديلا دي أبقى ورا نوم حايدين لما يسهودن عبد الرحمن إذين لما يسي كون سود وهذا الكلام عاد قادت كحر عدكينا لقاها كحرنا هدان صومالي وين نحي صومالي وين هدان وركينا لقاها كحرنا من الدون إنه سلام عليكم وخير قبل صومالي الله وكان نين غير قبل الله وكانوا وانا تاغير سنة متكلو دان إيتانا جود إيدان تانا نووضة وانا كفر حسنا حسنا واسود وينينا دو كسو نقضا دو تاقنا واسيد وينينا كان عصوبان سود وينينا وخير قبل الله نو كانوا دور الشدى الله كتر تبو جبريل الشيخ شريفنا واسود وينينا كل قد واسود وينينا لكن اسبهيسيقا عرورتا اسكحب الشو waxaa laga soo qaadaa meel cidla caruurta iskaasiyo dadka lacagta la siiyo isniijka ah maskiinkan yaroo yuulka iyo xiirxiiranna hadda meesha xukuma leh gadaha isaga noqdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.